السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورما إيجادان ما شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. dhammaantiin soo dhawaad walaalayaal. barnaamijkani waa barnaamij aan ayaan dhaweed ballan qaaday inaan bal fikirkeyga ka dhiibi doono insha allah. wuxuuna ku saabsan yahay walaalaha la magac baxay GYL ayaa maalmahan dambe xoogaa aada u cabanayay. marka bal insha allah waxaan isleeyahay wixii xala oo macquulana aada la fiirisid, ayaga laftirkooduna dhaliilaha ay leeyihiin aada u sheegtid. inkastoo aan ka xumahay mar walba barnaamijka haybsooca la yiraa inuu yahay yacni wax aada u xun aan aaminsanahay, haddana waxaan aaminsanahay inay qeyb weyn ayaga laftirkooda ku leeyihiin. marka way kolley dadka way eedeeyeen, hana eedeeyeen, eedu waana qabataa, laakiin ayaga laftirkooda inay qeyb ka leeyihiin in loo sheegana waa waajib. barnaamijkan hadda dib ugu laabto wax hadda soo bilowday ma ahan, laakiin mar walba kolley weji cusub uu ku yimaadaa. waxaan xasuustaa adigu xasuusteeda 15 sano meelahaas waqti in laga joogo aan u malaynayo. waxaa ka hadli jirtay maamada Maryam Mursal Ciise, waxaana la dhihi jiray markaas quursigu qiil ma leeyahay. waxay la tahay inaan BBC-da ka dhegeysan jiray, laakiin kolley wax horumara oo muuqdo laga gaaray ilaa iyo hadda anigu ma maqal. hadday jiraan horumaro laga gaaray waagaasna kolley adinkaa ila wadaagi doona insha allah. horta waxaan ka hadlayo gabooye keliya ma ahan. gabooye waxay la tahay waa qola ayaga kamid a, laakiin anigu waxaan ka hadlaya waa guud ahaan dadka la hayb sooco, tumaal, muxuu ahaa gabooye, yaxar, hadba magacaad rabta u bixi, laakiin highest common factorka ka dhexeeya waxaan u arkaa inuu yahay hayb sooc. marka anigu waxaan rabaa, laga yaaba gabooye inay qabiil ayaga kamida uu yahay, laakiin kulligood yacni waa dad isku doon saaran. laakiin isku doon ha saaraadeene ma og yihiin inay isku doon saaran yihiin. waxa aan ka rabo waa taas inaan macnaha aan u bayaaniyo ayaga. faa-iidaysa ma ku jirtaa siay dhibkan uga baxaan inay iyagu marka hore isbahaysi samaystaan. waxaan leeyahay isbahaysigaas horta hadda waxbaa ka bilaaban, oo barnaamijka la yidhaha 0.5ka waa la wada geliyey, oo waxaad moodaa inta laysu aruuriyay halkaas la geliyey. inkastoo wax aan xadgudub u arkana ay ka dhex muuqdaan 0.5ka, oo dad yacni dhibaatada dadkaanu qabaan aan qabin ay kamid yihiin, si maaragtay farsama iyo caqli ah ay ku galeen oo ay xaquuqdoodina la qaybsadaan. oo yacni guur la-aanta iyo waxaa la yidhahdo isdhexgalka bulshada dadaan dhib ku qabin, oo yacni dhinacaas xor ka ah ayaa 0.5ka kula sii jira. taas laftirkooda waa dhaliil inay iska diidaan bay ahayd. oo dad qabiilo kale ahaa jira sida reer oo xasan oo kale, haddaanba caddeeyo, sheekaalay ahaayeen. waa dad ilaa iyo hadda muxuu ahaa ayagaaba kibir badanba. oo waxaan xasuustaa hadda ka hor waxaan isku xaafad ahayn ninkan siyaasiga weyn ee la yiraahdo isheeg Faarax Sheekh Cabdulqaadir, ayaan waxaan ahayn isku xaafad. aabihiis inuu dhintaan maqlay sa ila taa Allah u naxariisto. marka caruur yar yar oo aabihiis oo dhalay ayaan diris ahayn. waan sheekaysan jirna marka,
oo waxaan ka sheekaysanaa hadda kahor gabar asiga walaashiisa oo nin isla ayaga unbaa isguursadee si qasaba loogu daray ayaan la sheekaysanaa dhahna maxaa dhacay oo qasabka ay waxa markaas tii dadka kale ma guursan oo maxaa dhacay waxay tiri waxay naga yihiin sharqi kelimadaas ilaahay hadda wax ii fasira ma arkin waxay tiri dadka kale sharqi naga yihiin marka dad yacni soomaalida kaleba aan guursan oo ayaga kaliyu isguursada oo muxuu ahaa ummadda kale yasaaya 0.5ka lagu daray markaasaa tumaal iyo madhibaan iyo muxuu ahay jareer iyo dadkii dhibaatada ku qabay bulshada kale ayay ku xaquuq noqdeen markaasay weliba xelalka ugu fiicnay ka qaateen waa khalad weyn oo ay ogolaadeen walaalaheenna muxuu ahay lahayb sooco taas waa meel waxaan rabaa marka kulley soomaalidu inta badan waxoodu waa yacni mursidii ku kaydsan yihiin laakiin qoraallo iyo waxyaabo maaragtay raad raaca oo weyn ma jiraan marka waxaan rabaa balqaabka iyagu ay isula dhaqmaan inaan caawa wax ka tilmaamo insha allah iyo waxyaabo anigu ama aan maqlay oo aan murti ahaan u maqlay ama aan la kulmo si toosa waxaa jirta shirib la yidhaahdo tumaalo tuurin waa yihiin waase kala tawaansadeen horta waxay dhahaan waa yarnahay dadka waa ka yarnahay doodahooda markaan dhageystay inay dad tiro yar yihiin iyo xataa xoogaa ay isku tilmaamayaan laakiin anigu waxaan aaminsanahay inay soomaalida inteeda kale ka yarayn oo hadday isu tagaan yacni qabiil weyn oo raalli ahaada telefon ay soo galay waxaan aaminsanahay marka inay la ekaa karaan qabiil soomaaliyeed laakiin dhibaatada ugu weyn oo ay qabaan waxay tahay dadku ha yaso oo ha lahayb sooco oo ha lagu xadgudbo laakiin ayaguna waa isku sii xadgudbaan tumaalku wuxuu yasaa muxuu ahay madhibaanka wuxuu yasaa tumaalka siyaasitaana ayaga laftirkooda dhexdooda yaala marka caqliga saliimka wuxuu sheegayaa markii dhibaato aad wada qabtaan waxaa la yidhaha cadowgayga cadowgiisa waa saaxiibkay dad waxaa jira muxuu ahaa dadkaasoo dhan iska riixay dadkaas marka dadka ay riixeen waxaa la rabaa inay caqli la yimaadiin inay dadka ayagu iska xigsadaan oo isu soo dhaweystaan oo ayagu aanay iscaayin laakiin waxyaabaha anigu intaa aan maaragtay barnaamijyooda aan yacni u kurgelaya aan la kulmo waxaa ka mid ahayd laba nin oo ama ilmo adeera ama wada dhashay ayaa nina wuxuu leeyahay reer hebelaan ahay nina wuxuu leeyahay reer hebelaan ah laba qabiilay ka tirsan yihiin khalad weyn waa qabiilka aad ku biirtid aad ka tirsanaatid laakiin qabiilku waa inuu si toosa kuu qaabilaa tusaale yar aniga hadda waxaan ku noolahay Holland waa lii qaabilay muddo markaan joogay kadib baasboora liisii waxaa la yidhi waxaa tahay Netherlander ka waran afka haddii layga oran lahaa waxaa tahay Netherland laakiin baasboorka kuma siinayne sidaada Netherland isaga ahaw yacni maxaan aaminsanaa lahaa qof Netherland ilaa afkaa layga yidhi laakiin waxba layma siino baasboor aan ku safra ma haysto maxaan yacni Netherland miyaan sheegan lahaa khaladay tahay haddaan sheegto ilaa qof Netherland ahaan ahay laakiin baasboorka marka laysiiyo waa dhihi kara markasta ma noqonayo Soomaaliya dhaha aniga laakiin waxaas waa tahay markii lagu yidhaha waa in qofkaas wixii uu helayo aad heshaa okay waxaan soo qaadanayaa shirib inta badan anigu waxaan ahay mursade qof walba waa ogtahay mursadana wuxuu yaqaanaa abgaal waxaa laga yaabaa inaan inta badan shirib soo qaato waxyaaba abgaalka dhexdiisa ka dhacayna aan soo qaato marka taas xumaan yaan loo arkin waxaa weeye is aqoonta abgaalna mursadu yaqaan mursadana wuxuu yaqaan abgaal waxaan soo qaadanayaa marka nin la dhihi jiray rooble macow oo wuxuu ahaa sida ay la tahay isagoo gabooy u ahaa nin kale oo tumaala laakiin magaciisa aanan hayn iyo asigaa isku shirbay wuxuu yidhi rooble macow wuxuu yidhi haa rati abgaaliyo rooble boon wixii iska raaracshaan rabaa yacni wuxuu duraa saas ninka dhahaya ninka tumaalka ahay waay wuxuu duraa ninkan muxuu ahay madhibaanka ah oo ka tirsan rati abgaal ama harti abgaal wuxuu yidhi marka kiyaa u jawaabo wuxuu yidhi rabtaad ka joogta reer mantaan rabteed kalaan ka reed roga kanna wuxuu ka tirsan yahay reer mantaan
oo waxaa weeyaan tumaal kanna waa madhibaan wuxuu ka tirsan yahay harti abgaal labadana nin la qaabilayo gabar ka guursan kara ma jiro labaduna waa iscaayayaan bal warkan fiir si fiican u fiirso markaasuu wuxuu yidhi roob lamacow muxuu rabaa ratigi duur ma raadsado rooblaha waxaa la yidhaahdaa nin aada u shir badan u ahaa mar walbana wuxuu hadda qofku markuu shirbaaya qoladii uu ka tirsanay unbuu garab siinaa mugta marka adigu inuu hadda qolo kale ay isdheheen iyo inay kale isdheheen mahoba laakiin yacni waxaa ku jirta ayagiyaa isu faanaa dhaqanka soomaalida wuxuu ahaa midgaankana wax lalama cuno tumaalkana waxbaa lala cunaa laakiin labadaba lama guursado oo sheeko been fakatay runimo gaarta ahaa jirto la yidhaahdo baktiga iyo cunaan iyo waxyaaba noocaasa suuqaa loo galay nimanka badhibaanka suuqaa loo galay waa nijaas ayaa la gaarsiiyey laakiin ninka tumaalkaa waxay leeyihiin maya ninkaanu birtaasoo tumaa laakiin sidiisa kale waa caadi waa daahir cuntadaa lala cunaa raggaa loogu daraa marka muxuu leeyahay ricif yaraanku dheero hoob rijaasha waa la raamsadaa huu yidhi ninka faana waa tumaal anigu rijaashaan wax la cunaa ee rooblo waaba rey jirtee raysba kururudey kartaa rayska waxaa weeye roobka markuu dhulka galo ayaa la yidhaha bahasha gocodsada ama gacatada la yidhaha doofaarkaa qota marka ninkan wuxuu u danina inuu doofaar yahay doofaara tawliya laakiin anigu ricif yaraan ku dheelo rijaasha waa la raamsadaa raggan wax la cunaa xoogaa waa kaa sokeeya ayagaa isbahdilaya marka halkaas waxaa kaaga muuqata bahdilka soomaalidu ku hayso laftirkooda inay ayagu mar hore isku sii bilaabeen oo iyagu issii gumaysteen iscaayaan isyasaan caqliga saliimkaa taas ma sheegay tumaalaad tahay gabooyaad tahay gaalgalaad tahay yaxaraad tahay hebelow kalaad tahay kulligiin waxaa waaye common factorka idinka dhexeeya haybsooc inaad isku biirtaan waay dhalasho qaadashada beenta ah ee muxuu ahaa cunaqabateynta aan lagaaga qaadayna ha qaadan marna ha yeelin okay waagii dagaalada ay ka dhaceen xamar 2006 ayaan waxaan u qaxnay muxuu ahaa meeshan la yiraahdo ii sheeg xamar banaankiisaan u baxnay waxaan degnay xaawa cabdimin liraa maamo aada iyo aada wanaagsanaa deganayd ilaahay ayadee labadeeda gabdhood bakhayr ha siiyey halkaasaan degnay way nagu soo dhaweysay meesha markaan degnay marka maamadu waa xaskul hawiyena waa hawiye sax ah laakiin xirfadooda laftirkooda lagu galay oo sheeko waxaa jirta yacni la yiraahdo suuqaa loo gala laftirkooda kuwa yani dadkan dad aqoon leh oo ama muxuu ahaa bir ha tumo ama kabaha ha sameeyo ama ha kalluumaysto ayaga laftirkooda waxaa la yidhi waa yaxar oo kalluunkiyaa lagu leexiyey waa xirfadda ugu wanaagsanoo muxuu maanta kalluun soomaalida hata maanta way kalluumaysataa laakiin waagaas malaha dadka ugu horreeyo waxay ahaayeen kalluunka bilaabay marka ayaga laftirkooda waxaa la yidhi waxaa tihin kalluumaysato hawiye saxna wa anigu sidaan hawiye u ahay u yihiin oon hubaa laakiin xoogaa suuqaa loo galo okay meesha markaan degnay marka dad badan 100,000 oo qofooda meesha kusoo qaxday oo xaawa cabdideeda soo degtay maamada aada iyo aada u wanaagsan way soo dhaweysay dadka okay 100,000 oo qofood markaad marka fiiriso waa qabiilo kala duwan khabar gidir murussadi abgaal isaaq daarood nuuc kale mid sii kale nuuc aan joogin meeshaas ma jiro okay xoogaa markaan joogno marka dadkaan is dhex galnay ayaa maalin aniga su-aale la weydiiyey la yidhahaye iyo war aduu qoldeeta murussade maya murussade waa taha laakiin asalkaaga yaa taha layidhi waa quslo waa yaab oo maxaad ka hadlaysaa maya aniguba reer hebelaan ahay marka ninka markaas siila hadlaa dir inuu yahaan hore u ogaa diraan ugu yidhi laakiin ileen meesha dadka kusoo qaxayba kulligood waa dadkaan la haybsooco dad yar oo fara ku tirisoo annaga iyo dhowr qoysoo kale ah maahe haddaad meeshaas joogtana waxay ku leeyihin kan waa xawaadle kan waa kan waa habargidi kan waa abgaal murussado qaar aan xataa arko murussado ahaan ku jooga meesha hoos markaan u wareystay aan ogaaday okay alcamuum arrintii xoogaa xiise ila yeelatay waan dhex galay waxaan isiri bal arrintan wax ka ogow waxaan ogaaday 2 nin oo labadooda aabba wada dhasheen oo 2 qabiil kala ahaan meesha ku arko oo nin walba shaati gaara huganya mid wuxuu leeyahay xawaadlaan ahay midna wuxuu leeyahay diran ahay labadaasni markay abtirsadaana labadooda aabbo ma wada dhalan laakiin labada ka dambaysaa wada dhashay laba wada dhashay labay dhaleen asii kala dhashay
laba qabiilayna ka tirsan yihiin ha ka tirsanaadaane labadan qabiil labadaba nin oo gabar ka guursan kara ma jiro okay aniga marka waxaan oran lahaa shirib hore oo kale aan soo qaato hadda nimanka la yiraahdo sheeg nuux maxamuud hadda loo bixisay ila taayiga laftirkooda magacooda hore gaalgalow ahaa waxaan ayadana waan ka tagay xagar dheer waxaan ka tagay xawaabdi waan ka tagay xagar dheer aan tagay xagar dheer markaan tagaan haddana waxaan kula kulmay niman badan oo luuqadda lahjada aad moodo inay muxuu ahaa abgaal yihiin marka xoogaa way soo jiidatay nimankan warsada waxaan idhahay adigu abgaalatiin soo maaha markaasay waaba iga caroodeen waxay dhaheen war abgaalkii waxaad ka hadlaysaa anigu manihini dad waxaana la yidhaha nuux maxamuud nimanka taariikhdoodan dib u baaray waa raadiyey waxaan ogaaday nimankaas nuux maxamuudka hadda ah laakiin waagaas gaalgala dhihi jiray inay yihiin oo ka qaxay dhulkan marka sheekadii markaan baaray ayay waxay yidhahdeen yani midaa wuxuu yidhi anu nuuxa markaas ka hor ma maqal meesha markaan tegay markaas wuxuu yidhi miyaadan maqalow yidhi ha isku taaban tuula nuux tabeelahan waxaa ku taal ha isku taaban tuula nuux ma maqal miyaa ma nuux maxamuudaadan oqon markaasaa waxaa igu soo dhacday shiribkaasoo aan hore u maqloon ogaaday marka barnaamij kale keeneen oo qiso xataa cagar dheerta laftirkeeda ka dhacday iiga sheekeeyeen waxay dhaheen hadda ka hor yani waagaas intaan la isdagaalin kahor ay la deganaayeen abgaalka ayaa mid ka mid gabar wuxuu u doontay nimankii ay la deganaayeen oo abgaal aniga hadda laftii ka yimaaqan laakiin waxaan ba jeclaa inay abubakar gaaban yihiin marka shiribkiyaa waxau ku bilaabanayaa ayagu inay isbahdilayaan ujeedada aan ka leeyahay waa intaasun usoo qaata arrintaas gabar gobeed nin gaalgalaa guri ma loogu gey karaa uu leeyahay waa nabadoonkoodii gabadha inuu guursado rabo wiilkoodaha gabar wuxuu jeclaada abgaala marka yacni kow marka la weydiisanayaba waxaa laga bilaabay naftiisa inuu asugu xaqiro war gabaraan kasoo doonanaysiya ma aha nimanka abgaalkana inta badan waxay ku fahmaan shiribka waa iska dhaqantaas ma xuma laakiin si kale wax loo weydii kara moogtahay waxau yidhi gabar gobeed nin gaalgalaa guri ma loogu gey karaa bal sida loogu jawaabo dhegeysa marka waxau yidhi taleefona isoo galay marka waxau yidhi gugume hadduu geel noqdow guluulucaa la gey karaa garas hadduu gabar noqdow garays xirtaa la gey karaa yani waxaa weeyaan waxyaaba aan dhici karno incredible ah yani weligood waxaan dhicin garas waa geed garas hadduu garays xirto wuri oo gabar naqdaa la gey karaa yani gabadhaas gobeed guri gaalgala markaasaa la gey karaa gayax dameer hadday gandaal ku godlataa la gey karaa adugu waa badneed waa tiro badneed sidaasaa loogu jawaaba okay waxay dhaheen marka qiso la yaab laa meesha ka dhacday nimanka waa iska soo qaxeen kulli xaga dheer yimaadeen kadib waxaa dhacda marka gabadhii laftirkeedii qisadani si saxaa liiga sheekay xagar dheeraan macaa dadkii yani goobjoog ah ayaan la kulmay gabadhii laftirkeedii waxay dhaheen marka dadka haddii lagu murmo dhibaata ku dhacda gabadhii laftirkeedii waxaa ku dhacday arrin maaragtay kulley aan isleeyahay muranka lagu murmay ee ka timid oo waxaa la yidhi cunug aan aabalahaynay uurkiisa qaaday kabacdina reerkeedii ka baqday way soo carartay waxay timid xagar dheer markaas waxaa jooga ninkii gabadha loo diiday ninkii u timid wuu soo dhaweeyey waxau yidhi niyahow gabarhii soo dhawow dhahay cunugii dhashay cunugii markay dhashuu guursaday warqaduu qoray markaasu wuxuu u diray shiribkii uu ku qoray lidilabka isku dhaqano waa yaqaanin shiribkii wuxuu ku qoray gabadhi horey maxaa loo yidhi gayax dameer hadday gandaal ku godlataa la gey karaa okay wuxuu ku qoray gabadhi waa la guursadee gayax dameer gandaal ku maal waa loo soo jawaabo waxaa la yidhi nin inan leh wuxuu yidhahaa nin iin leh inanti iin lahow aragya waa arwaaxsayaa okay qisadan waxaan u keenay dadka markay la xidiidayaanna naftooday ku bilaabayaan inay macnaha ayagu ay yihiin dadka ka liita ayagaa afkooday ka bilaabayan ayagu markay sheekaysanayaan ama maxaa ay xifaaltamaan adug aad aragtana mid walba midka kale inuu asugu ka sarreeyo u aaminsan yahay okay beesha gabooye marka gabooye haddaad aaminsan tahay inaad tumaal adigu aad ka ragsan tahay oo aad ka fiican tahay tumaalna aaminsan yahay inuu adiga kaa fiican yahay yaxarna labadiinaba idinsiiya saa le war anigu waaba
xaalkaygu banaanku yaalaho dad nin rerebelo kaasaan ahay raalliga ahaada qoladan kale iyaguna muxuu ahaa isheeg hadda ma garanayo anigu kulley way ku biireen rabtay ku biireen waxaa la yidhahdaa nuux maxamuud anigu ma ogi taas warka maha in la guursaday kale ma ogi laakiin ay leeyihiin ma jeerteenan anagu oo muxuu ahaa adinka idin ma nihin barnaamijku intuu sidaas yahay anigu waxaan qabaa inaan laga bixin tan maanta lagu jiro waxaa laydinka rabaa xalku siduu yahay horta marka ugu horeysa hadda ifafaalo fiicanaa jira inaad ku faanaysaan ood leedahay aniga gabooy aan ahay aad ku dhiiranaysaan waa horumar oo waxay ka mid tahay waxyaabaha guusha ah oo aad gaarteen laakiin waa intaasoo loola dhowaado waxaa la rabaa inaad samaysataan hal urur oo kulligood yacni common factorka ka dhexeeya aad isugu timaadaan oo ah haybso waxaad rabtiin adinku adan isisiiyasina aad isdhex gashaan oo horta marka hore isdhexgalka bulshada adinku aad bilowdaan markaad si fiican isu dhex gashaan soomaalida kama tirayeridina dad aad u tiro badan waayo waxaa la rabaa hargeysa kan joogay gaarisa kan joogay boosaaso kan joogay gobolada dhexe kan joogay kulligood inay muxuu ahay daladaas soo wada galaan oo ay noqdaan dad ayagu isku qabiila okay point 5ka meeshan oo hadda inta badan laydinku guray kulligii waaba ku jirtiin laakiin kuwa muxuu ahay cariiriga laydinku haayo aan lagu hayna laydinku soo dirana iska finish oo ka saara oo dadkaad aheedeen aada dhaha iska baxsha haddaad ku doodid deegaanadeennu waa kala fog yihiin deegaano kala fog dad jooga hal qabiil waa ahaan kara aniga mursudaan ahay 3 gobol ayay beeshaydu degtaa labagu isku dhiganto gobolka banaadir iyo shabeellada hoose isku dhigan yihiin laakiin galguduudaan degannahay mursudaan ku joognaa inta waxaa naga saaran xawaadle inta waxaa naga saaran abgaal intana waxaa naga saaran habar gidir ka waran haddaan dhihi lahayn waa noogala tiro badan yahay markaan saas u fiirno waa nagala badan yahay soo maaha bal aan habar gidir isaga biirna haddaan dhihi lahayn ka war ma socon lahayd maanta mursud ahaan meesha ma ku joogi lahayd maya okay sideenan ku degannahay mursudaan ku nahay gobolaana noo dhexeeya deegaanadeenna waxaa u dhexeeya shabeellada dhexe aa u dhexaysa banaadir iyo markii la yidhahdo isheeg يعني galguduud meeshaan ka degannahay qabiilo badan oo sidaas ahaa jira ogaadeenku waxay degan yihiin muxuu ahay 3 wadanay degan yihiin waxay degan yihiin muxuu ahaa ii sheeg Ethiopia Kenya iyo Soomaaliya meel kastoo joogana ogaadeen ku yahay okay waxaa la rabaa marka meel kastoo aad joogtaan intaad isku biirtaan oo hal urur samaysataan hargeysa kan jooga bartiisa ha ku ahaado nin gabooye ah oo og walaalkiisa kale oo jooga muxuu ahay magaalada beledweyne ama Kismaayo ama Muqdisho jooga inuu sidaas uga warqabo oo aad harta marka ugu horeysa aadanna adku isiyasina oodan hoos isu fiirina haddaad halkaas gaartaan haddaad ka bixi weysaan anigu waxaan leeyahay waa wax meel kale soo laakiin 100% waa aaminsanahay hal fikir oo kala rabo inaan ku dirsado oo Soomaalida kale ay kala qayb qaadan karto ayadana si isdhexgalka bulshadu oo u bilowdo barnaamij kale waxaa jira asigana aad samayn kartaan donation haddaad samaysaan akoon intaad furataan aad dhaqaale ku aruurisaan oo aad dhahdaan isdhexgalka bulshadu si uu meesha u yimaado aad dhahdaan gabar ninkii naga guursada oo dadka kale hadda naga soo horjeeda ah intaasoo lacagan ugu darayna waa dhaqan jiro rasmi okay maxaa dhacaya marka yani dhaqso wax isma bedelayaan tusaale ahaan dhalinyaradu waa baahanta dhalinyaro badan oo dumar haysan oo maantay hadday dhaqaalaha laga bixiyo guursan lahayaa jira 10 kulan Syria ninka gabar naga guursada saaka meel ma uu yahay dad kula xirtaan shuruudna aad uga dhigtaan gabadhaas hadduu furay dhaqaalaha inuu soo celiyo aad shuruud uga dhigtaan adag oo waliba damiinkan sidaas lagu aqbalo waxay ila tahay hadad 100 sanadka dad 100 ku guuleysataan dadku abti iyo aysan naqanayaan birina leedin ma caay doona yani 10 sano kadib waxa carruurta gabdhahaas ay dhalaan way weynaanayaan dad waaweyn bay noqonayaan waxa weeye nin aftigiil caay kara ma jiro waa laga baxaya waa sida ugu fudud waliba waxaan qabaa haddaad barnaamijkaas dad aamin intaad raastaan aad akoon u furtaan dhaqaale aad uruurisaan 100 kun markay kugu dhacdo 10 gabdhood aad rag muxuu ahay kuwa ee hoos idin fiiriya aad ku xirtaan ee haddana sidoo kale uruurisaan aad ku xirtaan dadku waa isdhalayaan waan la isdhexgelaya hadhowna waa la kala xishoonaya because Soomaalida laftirkeeda horu isticmaali jira laba qabiil markay isdisho oo isbaabi'iso
maxaa gabdhaha la isugu bedeli jiro gabdhaha la isu sii jiro markii la heshiiyo waa colaadaanu inay yaraato oo biri dad isu waalida dadku noqdaan oo lees faqiyo oo lakala boqol la yiraahdo lakala xishoodo la yiraahdo war reer hebel aniga waa dhaleen in lagu duulo ma ogoli kanu ma ogola kaasu ma ogola okay colaadu yaraato caqli aad u tiro badan oo fiican oo waxay odayaasheen hore gaareen laakiin maanta anigu waxaan leeyahay 20 sano kadib wallaahi isbedel weyn ayaa dhacay haddaad dhahdaan gabar ninka naga guursado 10 kuna siinayna waa kaasaha gabdhaha nagala guursado gabdhihiina waa aad u qurux badan maasha Allah ku xira dhab okay akoonka haddaad furtaan oo aad barnaamijkaas samaysataan dad badan oo anigu aan kowka ah wada kala qayb qaadanayaan inta wadaan barnaamijkaas aniga xalka sidaasan arkaa cidda aan ku xadgudbay raalliga ahaato waxaan aan soo gudbinayo dhan cid aan duulaan ku ah iyo cid aan rabo inaan u gafo ma jirteen waxaan la raadinayaa walaalahaas masaakiinta ah ee la dhibaateeyay ee la hayb soocay ayaan rabaa inay xal helaan ayaga laftirkoodana dhaliishooda aanu sheego because dhaliishada markaad ogaato ayaad muxuu ahay aad dheefta heshaa laakiin adigu khaldan waa layga khaldan hadda dhibaato weyn waaye marka waa inay iyaga laftirkooda iska saxaan waxyaabaha ka qaldan kadibna ay u gudbaan tallaabada xigta hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh